وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. gidaarkan ama derbigan aynu ku nasanno ha ka baqin dhici maayo, waan ogahay inuu burbursan yahay, saasay tahay ma dhacayo. intay nool yihiin meeye haa ma aragtaa labada wiil ee halkaa taagan, inta ay reer yihiin ma dhacayo. soo fadhiiso oo dhegeyso aan kaaga sheekeeye. assalaamu calaykum, jimco wanaagsan dhammaantiin. waa qisadii saddexaad ee aynu kaga warramaynay qisooyinka ku soo arooray suuratulkahf. qisadii dhex martay nebi muuse iyo khadir waxay ahayd sida tan. reer bani israa'iil oo dhan way wada ooyayeen, sababtoo ah khudbadda uu jeediyey nebi muuse ayay la wada qiiroodeen. xoogaa ka bacdii waxaa hadlay mid ka mid ah dadkii. waxauu yidhi, nebi muusow, ma jira qof kaa cilmi badan? nebi muuse waxa uu ku jawaabay, maya. ilaahay baa nebi muuse la hadlay. muusow, waxaa jira qof kaa cilmi badan? waxa uu yidhi nebi muuse, ilaahay way sideen ku arki karaa? xaggee ayaan ka helayaa? waxa uu alla ku yidhi, kalluunku qaado sallid, kadib u jahayso meesha ay ku kulmaan labada badood. meeshaa aad ku weyda kalluunka salladii kugu jiray waa meesha aad kula kulmayso ninka. muuse waxau soo qaatay wixii la amray, waxay soo raacay isaga iyo wiil yar oo adeega u ahaa. way soo baxeen, way socdeen yacni waddo dheer oo daal leh. intii lagu jiray waddadaa waxa uu muuse kantarool ku hayey kalluunkii ku jiray salladda. makaa dhacay? miyaynu weynay? ma ku jiraa meeshii? si u socdeen waxay arkeen dhagax weyn. waxay isku waafaqeen, waynu daalnay, aynu iska nasanno, hadhow ayaan socodka sii wadaynaa. waxay ku nasteen dhagaxii. dhagax waxa uu ku yaallaa meel badda agteeda ah. way barqalibaaxiisteen. saacada ka bacdi way soo tooseen. socodkii ayay sii wateen. haddana xoogaa ka bacdi nebi muuse wuu daalay. waxau yidhi, na fadhiisi oo inoo keen quudkii aynu sidinay, si aayaddu sheegtay, aatinaa qida'ana laqad laqiynaa min safarinaa haadaa nasabaa. waanu ku daalnay safarkane, bal quudkii iyo cuntadan wadanay inoo keen. wiilkii yaraa ee adeegaha waxa uu furay salladdii. markuu furi rabay ayuu xasuustay. waxau yidhi, nebi allow, ma xasuustaa dhagaxii aynu ku seexannay? waan hurday. saan u hurday waxaan maqlay cod. waan soo toosay. waxaan arkay kalluunkii ku jiray salladda oo ku booday badda. inaan kuu sheegaan rabay, laakiin waa ilaaway. qaala daalika maa kunnaa nabqi fartadda calaa aasaarihim qasta. muuse wuxuu yidhi, oo waxaynu sugaynaybe ayna celi. si degdeg ayay u baxeen. waxay aadeen dhagaxii ay seexdeen. markay soo gaareen dhagaxii, waxay arkeen nin hurda xeebta meel dhagaxoodii u dhow. wuxuu alla leeyahay, fawajadaa cabdan min cibaadina aataynaahu min ladunaa raxmatan wa callamnaa min ladunaa cilma. naxariista ayaa cilmiga horeysa. raxmatan min cindina. macallinku waa inuu noqdo mid naxariis badan intaanu noqon macallin. muuse uu salaamay. wuxuu yidhi, ma ku raacaa si aan wax kaaga barto? eeg hadda edebta ku dhahan waana ta loo baahan yahay inuu ardaygu ku sifaysnaado. waxau yidhi ninkii, ma sabraysid? cilmiga agteeda yaallay waa cilmi cajaa'ib iyo qariib oo aan cod aqoonin. sidee ugu sabraysaa waxaadan aqoon? nebi muuse waxau yidhi, satajidunii inshaa allahu saabiran walaa acsi laka amra. waan sabrayaa oo hadal kugu soo celin maayo. waxau yidhi ninkii, waayahay, laakiin hay weydiin waxba ilaa aan kaaga sheekeeyo oo aan kuu sheego. laa tasalnii can shayin xataa xuduuda laka minhu dikraa. waan isfahanay soo maaha? haa. waa la baxay. nebi muuse wuu yaaban yahay. ninkan muxuu ku mutaystay cilmiga intaa leeg ee ilaahay sheegayo? sirtan ku jirta maxay tahay? cilmigan qariibka uu sheegaya muxuu yahay?
waxa uu isku dayey inuu ogaado ninkan waxa ka dambeeya ee uu qariibka ku sheegayo, isagoo ku maqan Khadar oo fakeraya. yaa Khadar wuxuu taagay gacanta. Muuse wuu eegay, waaba qolo doon wadata. Khadar wuxuu ku yidhi, waxaan doonaynaa inaad wadda naga tallaabisaan. nimankii doonta watay ayaa gartay Khadar baa soo fuula, wax lacag xitaa lagaa dooni maayo. way fuuleen doontii. Muuse wuxuu istaagay fiidii hore ee doonta, wuxuu iska daawanayay badda. fakar dheer ayuu galay. waa kuma ninkan Ilaahay yidhi ka cilmi badan yahay? waa kuma ninkan dadka oo dhan ay jecel yihiin? waa kuma dadkan ay dadka oo dhan garanayaan? siduu u fakarayay wuxuu waayey Khadar bidhaantiisa. wuu raadiyey muu helin. kadib waxaa arkay Khadar oo dadka ka baxsan oo jooga darafta u dambaysa doonta. wuu u soo dhowaaday. wuxuu arkay isagoo siibaya alwaax ka mid ah alwaaxyadii doonta. Muuse intuu xeraraas ka eegay ayuu ku soo booday. Khadar, maxaad samaynaysaa? ma sidaas ugu abaalgudaysaa? way ku soo dhaweeyeen, bilaa lacag ayay doonta kugu soo saareen. intuu Khadar dhowl caddeeyey ayuu yidhi, alam aqul laka innaka lan tastadiica macii sabra. miyaanan ku odhan ma sabri karaysid? oo waxaan hayo waa qariib iyo cajiib. Muuse dib ayuu isu xasuustay. wuxuu yidhi, iga raalli noqo, ha ii qaban waxaan ilaaway. waxaana igu adkayn laa tu'aakhidnii bimaa nasiitu walaa turhiqnii min amri cusra. Khadar hawshiisa ayuu dhammaystirtay. meeshii uu dilaaciyey ayuu awday. almuhim waa laga digay doontii. wax la socdaba waxay la kulmeen wiil la ciyaaraya ciyaal kale. Khadar uu dilay inankii yaraa. Muuse ayaa yidhi, waxaad dilaysaa naf aan waxba galabsan. Muuse wuu la yaaban yahay, yacni cilmiga ka dambeeya waa maxay in qof la dilo? Khadar sidii oo kale ayuu ku yidhi, miyaanan ku odhan sabri kari maysid? kadib Muuse wuxuu dareemay inuu culays ku yahay saaxiibkii. waa xikmad. haddaad dareento inaad culays ku noqotay saaxiibadaa, dib uga guro. wuxuu yidhi Muuse, in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii, qad balagta min ladunii cudra. haddaan wax dambe ku weydiiyo issii raacmin oo waynu kala hadhaynaa. intaasaa cudurdaar igu filan. kadib waxay soo galeen meel tuulah. iyagoo daalan waxa ay soo mareen safar dheer bad. mar hore ayaa ugu dambaysay waxay cunaan. waxay tuulada ka raadinayaan albaab furan oo ay salaamaan kadib ay u martiyaan. maysan helin. Muuse wuxuu arkay qolo meel taagan. wuu dhowaaday, wuu salaamay. wuxuu ku yidhi, waxaan nahay niman socotaa, cid aan u martino ayaan doonaynaa. raggi way is eegageen, kadib way kala tageen. way iska socdeen. siday u socdeen wuxuu arkay Khadar oo waddadiisii ka leexday. wuxuu ku leexday derbi ama gidaar meel ku yaalla. Muuse wuxuu yidhi, mid ku nasanaysa. Khadar wuxuu gaadhay gidaarkii. wuxuu arkay Khadar inuu gidaarku soo dhici rabay. wuu toosiyey. jaajuur ka soo dheeraa ayuu arkay. wuu ka soo saaray. mid kale ayuu ku beddelay. wuxuu isku qasay ciid iyo biyo. adigu dibudhis ayuu ku sameeyey. Muuse uu yaaban yahay. almuhim hawsha ayuu la qabtay. markay gebagabeeyeen ayuu yidhi, Muuse, hawshan aynu ku dhididnay qarash ayaan ku qaadan lahayn, oo hawl bilaash lagu qabto maysan ahayn. waad ogtay dee inaguna wayna gaajaysannahay, waxaan cunayn siisan lahayn qarashkaas. Khadar waxa uu fadhiyaa Muuse dhinaciisa. uu dhowl caddeeyey. fahmaysaa? nebi Muuse tiradii 3 jeer ahayd ayaa ka dhammaatay iyo ballantii. nebi Muuse uu fahmay qosolkaas iyo dhowl caddaytaas. waxa uu Khadar yidhi, haddaynu kala tegaynaa. waxaan kuu sheegayaa wax walba waxay ahaayeen. xabad xabad ayaan kaaga warramayaa. wata koowaadee ma doontiibaa? doonta waxaa watay niman iska danyar ah oo masaakiin ah oo quudriyoonkooda ku raadsanaya. meesha ay ku socdaan waxaa haysta nin boqor ah oo doon walba khasab ku qaata, laakiin hadday doloosho oo ay cayb leedahay ma qaato. doontaasi sidaasay ku badbaadaysaa. waa talabaadii ma inankii yaraabaa? inankii yaraa waxaa dhalay 2 waalid oo mu'min ah oo wanaagsan. waxaan ka baqnay inuu dhibaato iyo xadgudub iyo gaalnimo u soo jiido, saasaynu dilay. ilaahay baa ugu beddelaya mid kaloo ka wanaagsan kana khayr badan. waa saddexaad ma gidaarkiibaa? ma gidaarkan aynu hadda ku tiirsannahay, gidaarkaynu dhisnay, gidaarkaynu hagaajinay. waxaa iska leh 2 wiil oo yaryar oo agoommo ah.
waxay ku yeesheen gidaarkaa hoostiisa waxaa ugu jira kansi ama sanduuq ee ugu qarsoon. waxa uu doonay rabbigaa in ay weynaadaan oo ay qaangaadhaan kadib ay la soo baxaan alaabtooda. bal ka war haddaynu gidaarka ka tegi lahayn oo uu soo dhici lahaa, waxaa imaan lahaa dadka tuulada, waa la qodi lahaa, dib baa loo dhisi lahaa. sidaana waxaa ku soo bixi lahaa wixii qarsoonaa. waxaa abow ah nin wanaagsan, ilaahayna aniga iyo adiga ayuu noo soo diray si aan u ilaalino ammaanadii ninka wanaagsan ciyaalkiisa. intaasaynu maanta ku soo gabagabeynaynaa qisadeennii iyo sheekadeennii aynu ka sheekeynaynay. waadna mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.